awoodaha lama filaanka ah ee Arsenal iyo Man United isqalabaynta Tottenham iyo saadal la'aanta waxa ay la imaanayso Chelsea ayaa ka dhigaysa ku guuleysiga horyaalnimada Ingiriiska mid ka adag kal ciyaareedkii hore. Tababaraha kooxda Liverpool ayaana qirasho guud ku sameeyay in qorshihiisa uu yahay in marka hore kooxdiisa ay u dagaalanto afarta boos ee ugu sareysa horyaalka Premier League si uunan marnaba ugu baaqsan koobka dhagaha ballaaran ee taariikhaha fog ay ku leedahay kooxda ku ciyaarta lamagalaygii Anfield. Intaasi kadibna Klopp ayaa la weydiiyay kooxda uu u arko inay tahayba midda u sharaxan ku guuleysiga taajka boqornimo ee kubadda cagta England, waxaana uu yidhi waa Man City, isagoona ku nuuxnuuxsaday in 5 ama 6 jeer oo isku xigta ay noqon lahayd ku guuleysiga horyaalnimada Premier League haddii ay iyaga ku guuleysan lahayn. kadib imaanshaha ugaarsadaha ugu weyn goolka hortiisa ee Haaland, waxaaba la isku raacayba in la taagan yahay waqtigii Man City ay soo afjari lahayd habaarka kaga habsaday ku guuleysiga horyaalkii horyaalada ee qaaradda Yurub. walwal cusub ayay Arsenal iyadana ku abuurtay kooxaha fasalka cusub loolanka kula gali doona horyaalnimada England kadib markii guushii afaraad oo xiriir ah kulamada saaxiibtinimo ay ka gaadhay kooxda sida daran ay u xifaaltamaan ee Chelsea iyagoona afartasi kulan ku dhaliyay 14 gool. waliba xidiga xeelada iyo oradka ku maquuniyay ciyaartooydii kooxda galbeedka London kuna guuldaraysteen inay xakameeyaan wuxuu ahaa saxiixa cusub oo ay ka soo qaateen Man City Zinchenko. Thomas Tuchel oo la yaabayba Arsenal cusub uu kula ciyaaray Mareykanka ayaana yidhi waxaan nala dhashay koox maskax ahaan iyo jir ahaanba u diyaarsanayd inay guuleysato, waana uu aqbalay iqaabtii uu ka qaabilay kooxda ay ku wada xifaaltamaan magaala madaxda Ingiriiska. maamulka Man United ayaa iyagana u ballan qaaday 3 milyan oo gani haddii Ten Hag kooxdiisa ay ku guuleysataba inay ku dhamaysato afarta boos ee ugu sareysa horyaalka Premier League kal ciyaareedka cusub, waana sababta aan u arkaynaba United ka duwan kuwii aan aragnay kadib Sir Alex Ferguson. markan iyo wararka suuqa, ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Sporting Lisbon Matheus Nunes waxay wararka sheegayaan inuu qarka u saaran yahay sii joogista kooxda reer Portugal xilli xiiso wali ah uu ka helayo Liverpool. Nunes ayaa awood u yeeshay inuu dhaliyo 4 gool, waxaana caawiya uu ka noqday 5 kale kadib kota kulan uu u saftay Sporting Lisbon tartamada oo dhan. haatan waxaa si weyn loogu siyaalaynayaa u soo weecashada xagga iyo horyaalka Premier League khaasatan qalcadda Anfield. ciyaaryahanka qadka dhexe Chelsea Gallagher ayaa xaqiijiyay inuu doonayaba sii joogista Blues si uu magac ugu sameeyo xilli ciyaareedka cusub gagada Stamford Bridge. 22 jirkan ayaa weli si joogto ah ugu ciyaarin kooxda Thomas Tuchel iyadoo amaah kala duwan loogu diray kooxaha Charlton, Swansea City, West Bromwich Albion ilaa iyo Crystal Palace. Gallagher ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay Crystal Palace uu amaah ku joogay xilli ciyaareedkii hore, wuxuuna cadeeyay in la taagan yahay waqtigii uu u dagaalami lahaa booskiisa joogtada ee kooxda ka dhisan galbeedka London. hadalhaynta difaaca heerka caalami ee dalka Faransiiska Gunde weli waa mid halkeedii ka sii socota, wuxuuna bartilmaameed waqti fog u noqonaya xoogweyntii galbeedka London. hase yeeshee waxaa wararkii ugu dambeeyay ay warinayaan in Chelsea uu ka doorbidayo ka mid noqoshada Barcelona, inkastoo xaalado dhaqaale oo aad u xun ay haysato Barcelona, haddana taasi kama hor istaagayso soo xirigelinta mid ka mid ah difaacyadii ugu khatarta badnaa horyaalka La Liga Spain ka oo noqonaya Jules Koundé. Bayern Munich dhankeedana waxay bilowdayba in xiriir toosa ay la samayso kooxda Tottenham iyadoona doonaysa goolmagafahooda jooga dheer ee Harry Kane ka oo ay u arkaan inuu yahayba beddelka ugu habboon ee Robert Lewandowski. kabtanka xulka qaranka England waxaa si weyn loo sugayay ka tegistiisa waqooyiga London xilli ciyaareedkii hore, hase yeeshee ma dhicin. welina isagoo 28 jir ah kuma guuleysan koob weyn oo laga ciyaaro qaaradda Yurub ama gudaha England, waana sababta ku riixaysa inuu isaga tagaba waqooyiga London.
haatanna wuxuu bartilmaameed u noqonayaa hal uu ku rumayn karo riyooyinkiisa ah ku guulaysiga koob waana Bayern Munchen. waad ku mahadsan tahay haddii aad daawanaysay warbixinadan ilaa iyo dhammaadkooda. waxaan ahay Maxamed Cabdirasaaq Tolman.